بسم الله الرحمن الرحيم. جمعة مبارك وكوبيا صدنك بيشا جولاي سنة لبكن لباتن يلح أو كوباغن تضبية طبنك بيشا صفر سنة كن أفر بغلا فرتن يسيديد تاريخ دي هجرية ده كسو دوادا مركله يا برنامجكي وررك معنتا قضبضا عن إذن كوبها إننا وحا كمدا waxaa isa soo taraya ifafaalayaasha dagaalka bariga dhexe inuu ballaaranayo ayna ku lug yeeshaan dhinacyo kala duwan iyadoo Trump uu ku goodinayo in uu burburin doono kaabayaasha rayidka iyo kuwa dhaqaalaha ee Iiraan. dhinaca kale waxaa xoogaysanaysa suurtagalnimada in Sacuudigu dagaalka uu ku biiro isagoo maanta ugu baaqay Iiraan in ay joojiso weerarada ay ku hayso wadamada Khaliijka iyo Jordan. haddaba maxay khubarada ka tiri arrimahani? warbixin iyo falaqayn khubara ay ka hadlayso ayaan idinkugu haynaa qaybta dambe ee xubinta falaqaynta ee barnaamijka. wararka kalena waxaa ka mid ah ciidamada ilaalada kacaanka islaamiga ee Iiraan oo sheegay in uu si buuxda u xiran yahay marinka Hormuz ayna maantay beegsadeen laba markab oo damcay inay ka gudbaan marinkaasi. Netanyahu iyo Trump oo ka wada hadlay go'doomin dhanka dhulka oo Iiraan lagu soo rogo. Shiinuhu wuxuu ku baaqay in la dejiyo xiisadda bariga dhexe. Sacuudiga oo la sheegayo inuu diyaarinayo guluf military oo ka dhan ah Xuutiyiinta xilli xiisadda badda cas cirka ay ku laaran tahay. ugu yaraan 11 Falastiiniin ah oo ku dhaawacmay weerar ka dhacay daanta galbeed ee la haysto. ruushkana wuxuu sheegay inuu weerar cusub ku qaaday dekedda Odessa isagoo sheegaya in uu beegsaday maraakiib hubsiday oo ku suganayd dekeddaasi. dhammaan wararkan iyo weliba qodobo kale oo faahfaahsan iyo wixii warah ee soo dhaca intaynu hawada ku jirno ayaan idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijka wararka maanta. soo dhawaada marka la daawadaya si aad ula socoto una hesho wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbino. haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir oo aad ku mahadsan tihiin daawashada barnaamijka. maanta waxaynu ku bilaabaynaa xiisadda u dhaxaysa Xuutiyiinta iyo Sacuudiga. inkastoo Sacuudigu uu ku dhawaaqay dhismaha isbahaysi dhanka badda ah, haddana waxaa la sheegayaa in gudaha Sacuudiga ay ka socdaan diyaargarow iyo dhaqaaqyo military oo la doonayo weerar ballaaran oo ka dhan ah Xuutiyiinta. aynu eegno wararkii ugu dambeeyay ee amuurahani. warbixino cusub oo ay baahisay warbaahinta ayaa waxay sheegayaan in Sacuudiga uu diyaarinayo howlgal military oo ballaaran oo ka dhan ah dhaqdhaqaaqa Ansaarullah ee loo yaqaan Xuutiyiinta dalka Yemen, iyadoo la qorsheynayo weeraro dhanka badda cirka iyo dhulka ah. sida lagu sheegay warbixinta, howlgalka ayaa la filayaa inuu diiradda saaro deegaano ku yaal bartamaha Yemen, iyadoo ujeedada ugu weyn lagu sheegay dib u furista marinada ganacsiga ee badda cas iyo marinka biyoodka Bab el-Mandab, kuwaasi muhiim u ah isu socodka ganacsiga caalamiga. wararka ugu dambeeya waxaa sidoo kale ay tilmaamayaan in Sacuudigu uu dadaal ugu jiro dhismaha iskaashi dhanka amniga badda oo ay ku jiraan dalal dhowr ah si loo ilaaliyo maraakiibta ganacsiga iyo kaabayaasha tamarta ee gobolka. dhanka kale, xoogagga Xuutiyiinta ayaa si cad u sheegay inay sii wadi doonaan tillaabooyinkooda military haddii ay sii socdaan weerarada iyo go'doominta lagu hayo waddanka Yemen. xiisadda sii kordhaysa ayaa qayb ka loolanka ballaaran ee ka taagan bariga dhexe, iyadoo weeraro iyo jawaabo isdaba joog ah ay ka socdaan dalal dhowr ah oo gobolka ku yaal. ilaa iyo hadda dowladda Sacuudigu si rasmi ah ugama dhawaaqin bilowga howlgalka la sheegay, waxaana faahfaahinta ku saabsan wakhtiga iyo baaxadda weerarkaasi laga sugayaa wasaaradda gaashaandhigga iyo mas'uuliyiinta dalka Sacuudiga. hagaag warkaasna intaa aynu kaga gudubno bariga dhexe waan u soo laaban doonaa oo warar kala duwan aan idinkaga hayno xagga Yurub. haatan aynu qoraansanno gaar ahaan dagaalka Ukraine iyo Ruushka.
wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa maantay daboolka ka qaaday in ciidamadoodu ay fuliyeen weeraro cusub oo lagu beegsanayo kaabayaasha dekedaha iyo bartilmaameedyo badeed oo ku dhow magaalada Odessa ee dalka Ukraine. war-saxaafadeed ay wasaaraddu soo saartay ayaa lagu sheegay in weeraradan ay dhaceen saacadihii la soo dhaafay waxaana lagu adeegsaday hub sax ah oo laga rido diyaaradaha iyo sidoo kale kuwa aan duuriyaha lahayn ee loo yaqaana droniska. sida Moscow ay sheegtay weeraradu waxay beegsadeen kaabayaasha dekedda iyo maraakiib lagu tuhunsan yahay inay taageero dhanka saadka militariga u fidiyeen ciidamada Ukraine. ruushka ayaa sidoo kale sheegay in la garaacay haamo lagu kaydiyo shidaalka iyo xarumo muhiim ah oo ku yaala Odessa oo ah dekedda ugu weyn ee Ukraine ee badda madow isla markaasna door weyn ku leh saadka ciidamada iyo doofinta badeecadaha. dhinaca kale Moscow waxay sheegtay in ciidamadeedu ay weerareen markab xamuul oo marayay koonfurta Odessa kaas oo ay ku eedeysay inuu siday qalab ciidan oo loo waday deked ku taal Ukraine. dowladda Ukraine weli kama aysan hadlin sheegashooyinkan mana jirta cid madax bannaan oo xaqiijinaysa nooca markabkaasi saar ama qalabka uu siday. weeraradan ayaa imaanaya iyadoo ay sii kordhayaan isku dhacyada ka taagan dhanka marinada ee badda madow iyo badda Azov. Ukraine ayaa xoojisay weerarada ay ku hayso maraakiibta dagaalka iyo saldhigyada badda ee ruushka, halka ruushkana uu kordhiyey duqiimaha uu ku hayo dekedaha waddanka Ukraine, baqaarada shidaalka iyo maraakiibta ku wajahan dekedda gobolka gaar ahaan Odessa. ruushku wuxuu ku adkaysanayaa in uu bartilmaameedyo ka dhiganayo goobaha saadka military ee Ukraine, halka Kievna ay ku adkaysanayso Moscow inay beegsanayso maraakiibta rayidka iyo doofinta wax soo saarka beeraha ee waddankaasi Ukraine. waa hagaag warkaasna intaa aynu kaga gudubno, bal markan aynu eegno qodobada kale ee ku jira barnaamijka wararka maanta. ilo wareed dhanka caafimaadka ayaa waxay sheegeen in ugu yaraan 11 Falastiiniin ah ay ku dhaawacmeen weeraro ay geysteen ciidamada Israa'iil iyo Israa'iiliinta deegaaminta looga sameeyey deegaanada Falastiiniyiinta ee daanta galbeed. weerarkan ayaa ka dhacay tuulo ku dhow magaalada Nablus. sidoo kale ciidanka Israa'iil ayaa weeraray deegaanka Khalat al-Hamus ee sidoo kale ku dhow Masafariyata ee koonfurta magaalada Hebron, halkaasi oo lagu soo waramayo in weerar ka geysteen Israa'iiliyiinta. dhankaasi iyo waddanka Spain haddii aynu eegno, ugu yaraan 19 muhaajiriin ah ayaa ku dhintay kadib markii ay isku dayeen inay ka gudbaan xadka u dhaxeeya Morocco iyo dhulka Spain ee Ceuta, sida ay sheegeen mas'uuliyiinta. wararka ayaa tilmaamaya in kumanaan qof ay Khamiistii iyo habeennimadii Jimcihii ka gudbeen dhanka badda iyo bariga iyagoo ka yimid Morocco. ilaa amni ayaa waxay sheegayaan in ilaa iyo 40,000 in ay ka gudbeen 24 saac ee la soo dhaafay xeebaha u dhaxeeya Morocco iyo sidoo kale Ceuta. ra'iisul wasaaraha waddankaasi Spain, Pedro Sanchez, ayaa sheegay in dowladdiisu ay abaabulayso dhammaan agabka iyo ciidamada la heli karo si wax looga qabto xaaladdan. Sanchez ayaa la filayaa in maanta uu booqdo jasiiradaasi Ceuta isaga iyo wasiirka arrimaha gudaha Fernando Grande Marlaska. waa tahay warkaasna intaas aynu kaga gudubno. waxaan u gudbaynaa goordhow wararkii ugu dambeeyay ee xiisadda colaadeed ee u dhaxaysa Iiraan iyo Mareykanka. duqeymo Iiraan ay sheegtay goordhowta inay qaaday iyo sidoo kale marinka Hormuz oo lagu soo waramayo in maraakiib kale lagu beegsaday. sidoo kale waxaan idin haynaa warbixin sheegaysa Netanyahu iyo Trump oo ka wada xaajooday go'doomin dhanka dhulka ah in lagu soo rogo waddanka Iiraan, iyo xubintii falaqaynta iyo qodobo kale. intaan u gudbin aynu ku hakanno qadar xayeysiina. soo dhawaada markale daawadayaal, wali waxaad la socotaan barnaamijkii wararka maanta oo subaxan oo duhurnimadan Jimcaha toos idinkaga imaanaya istuudiyaha iyaga koowaad. barnaamijyadeena waxaad ka heli kartaan bogagga bulshada ee internetka sida YouTube, Facebook, Twitter iyo Telegram. warbixino qoraal ah, warar, fahlooyin iyo macluumaadyo kale waxaad ka heli kartaan
bogga internetka aynu ku leenahay ee www.hbnonlinetv.com ku xirna waajibayaan oo ka dhigo wehelkaaga wararka hagaag haatan waxaynu eegaynaa wararkii ugu dambeeyey ee xiisadaha colaadeed ee ka aloosan gobolka bariga dhexe xagga hormuus aynu ku horumarnay ciidanka ilaalada kacaanka islaamiga ee Iiraan ee magacooda loo soo gaabiyo IRGC ayaa daboolka ka qaaday in marinka hormuus weli uu xiran yahay isla markaasna maraakiib kasta oo doonaysa inay ka gudbaan ay qasab ku tahay inay ogolaansho ka helaan ciidamada badda ee Iiraan war ay soo saareen taliska ciidamada badda ee IRGC oo lagu baahiyey warbaahinta dowladda ayaa lagu sheegay in sheegashada taliska dhexe ee ciidanka Mareykanka CENTCOM ee ah in isu socodka maraakiibta uu si caadi ah uga socdo marinka isla markaasna uu ku jiro xayndaabka ilaalinta Mareykanka ay tahay mid aan sax ahayn dhinaca kale ciidamada ilaalada kacaanka islaamiga ee Iiraan ayaa ku dhawaaqay in ay beegsadeen laba markab oo shidaal sida kuwaasi oo ay sheegeen inay isku dayayeen inay waaberigii maanta ka gudbaan marinka hormuus iyagoo maraya waddo aan la shaacin isla markaasna ay taageerayeen Mareykanka ciidamada Iiraan ayaa sheegay in labada markab aysan ka jawaabin degnino ay ciidamada Iiraan siiyeen ka hor intii aan la beegsan waxay sidoo kale taasi ku dareen in 4 markab oo kale ay bedeleen jihadii ay ku socdeen isla markaasna dib ugu laabteen goobihii markii hore ay ku sugnaayeen dhacdada kadib sheegashooyinkan ayaa ku soo aadaya iyadoo xiisada marinka hormuus cirka ay ku laaran tahay war kale oo colaadan la xiriira wargeyska The Telegraph ee ka soo baxa magaalada London ayaa waxa uu daabacay in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ay toddobaadkan aqalka cad kaga wada hadleen suurtagalnimada in Iiraan lagu soo rogo go'doomin dhanka dhulka ah sida wargeysku sheegay labada nin ayaa ka wada hadlay sidii cadaadis loogu saari lahaa Iiraan arrinkan iyadoo la adeegsanayo tillaabooyin militari iyo kuwa aan militari ahayn kadib bilooyin ay socdeen iska horimaadyada sarkaal sare oo Israa'iili ah oo wargeyska The Telegraph uu soo xigtay ayaa sheegay in la falanqeeyay suurtagalnimada in Iiraan laga hor istaago inay dhulka wax ku soo dhoofiso waxna ay sidoo kale ku soo dejiso iyadoo la xirayo marinada dhanka dhulka wargeyska wuxuu xusay in qorshahan uu beegsan karo marino muhiim u ah dhanka Iiraan ha yeeshee waxa adkaanaysa baa leeyahay in si buuxda loo hirgeliyo maadaama dalka Iiraan uu xuduud dheer la wadaago dalal fara badan oo ay daris yihiin war goordhawata soo dhacay wasiirka gaashaandhigga Israa'iil Israel Katz ayaa isna waxa uu sheegayaa in Israa'iil ay ku biiri doonto weerar military oo ka dhan ah Iiraan haddii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu si rasmi ah uga dalbado Israa'iil inay ka soo qayb gasho dagaalka Katz ayaa waxa uu sheegay in Tel Aviv ay diyaar u tahay inay taageerto howlgal kasta oo military oo Washington ku beegsanaysa Iiraan haddii codsi caynkaasi uu ka yimaado maamulka Mareykanka dhanka diblomaasiyadda wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Shiinaha ayaa ugu baaqday dhammaan dhinacyada ku lugta leh xiisadaha colaadeed ee bariga dhexe in ay dejiyaan xaaladda isla markaasna ay muujiyaan isxakameyn wasaaraddu waxay ku nuuxnuuxsatay inaysan jirin wax muwaadin Shiineys ah oo waxyeello ay ka soo gaartay weerarka lagu qaaday dhismo ku yaal dalka Kuwait oo ay deganayd shirkadda Shiinaha laga leeyahay Shiinaha ayaa sidoo kale ugu baaqay dowladda Kuwait inay qaado tillaabooyin muuqda oo lagu xaqiijinayo badqabka muwaadiniinta iyo hay'adaha Shiinaha ee ku sugan waddankaasi Kuwait warkaasna intaas aynu kaga gudubno haatan waxaynu soo gaarnay xubintii falanqaynta oo aynu aalaaba ku soo qaadano macluumaadka iyo xogaha ay bixiyaan khubarada arrimaha militariga arrimaha dagaalka ciidamada istiraatiijiyadda arrimaha diblomaasiyadda sirdoonka iyo siyaasadda sidoo kale xubintan waxaynu ku gorfaynaa waxyaabaha waaweyn ee warbaahinta caalamku ay qorto ama ay baahiso falanqayntan si gaar ah waxaynu ugu eegaynaa xaaladda bariga dhexe oo ka sii daraysa xaalkana waxaa la sheegayaa inuu ku dhow yahay dagaalku inuu ballaarto saacadihii u dambeeyey Sacuudiga ayaa waxa uu ugu baaqay Iiraan inay joojiso weerarada ay ku hayso
Jordan iyo wadamada khaliijka. haddaba marxalad khatar ah ayaa la gelayaa. maxay yihiin suurtagalnimada muujinaya qarax dagaal oo ka dhasha hanjabaadaha Trump iyo jawaabta Iiraan? derbiga kalsooni darrada ee u dhaxeeya Mareykanka iyo Iiraan ayaa gaaray heerkii ugu sarreeyay ee abad la diiwaan geliyo, iyadoo ay sii socdaan iska horimaadyo militari oo halis gelinaya in dagaaladu ay ku fidaan kaabayaasha tamarta, iyadoo aanay jirin wax calaamad dhab ah oo muujinaysa xabajoojintu inay dhowdahay. Gary Seymour oo horey u ahaa isuduwaha aqalka cad ee arrimaha ka hortagga faafitaanka hubka ayaa aaminsan in sii socoshada howlgallada weerarada ee ciidanka ilaalada kacaanka islaamiga ee Iiraan ee loo yaqaano IRGC ay ku riixi doonto madaxweyne Donald Trump inuu weerar ku qaado xarumaha tamarta iyo kaabayaasha muhiimka ah ee gudaha Iiraan. isagoo ka qayb qaadanayay falanqayn uu baahiyey telefishinka Al Jazeera, Seymour wuxuu ka digayaa in Washington ay awood u leedahay inay gaarsiiso Iiraan waxyeello aad u weyn, balse Tehran ay sidoo kale leedahay awood ay ku beegsato kaabayaasha shidaalka ee wadamada khaliijka Carabta, iyadoo adeegsanaysa dayuuradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaaladeeda, taas oo gobolka geli karta ama qarka u saari karta marxalad aad u khatar badan, sida uu yiri qabiirkaasi. 2 maalmood ka hor Trump wuxuu ku hanjabay inuu si adag u beegsan doono Iiraan, isagoo sheegay in Mareykanku uu Iiraan bari doono cashar adag, sida hadalka uu yiri, taas oo la xiriirta weerar lama filaan ah oo degdeg ah oo lagu qaaday ciidamada Mareykanka ee Jordan ku sugan. wuxuu sidoo kale kooxaha hubaysan ee Iiraan ay Iiraan taageerta ku tilmaamay kansarka adduunka. dhankiisa Mukhtaar Haddad oo ah tabaftiraha guud ee wargeyska Al-Waafaq ee Iiraan ka soo baxa, oo isna falanqayntan ka qayb qaatay, ayaa tilmaamay in derbiga kalsooni darrada ee u dhaxeeya Tehran iyo Washington uu weli aad u sarreeyo, taas oo ay sabab u tahay guuldarrada Mareykanka ee hirgelinta heshiiskii is-afgaradka, kaas oo noqon lahaa buu yiri saldhig lagu gaaro heshiiska madambays ah. Haddad wuxuu carabka ku adkeeyey in isku day kasta oo lagu bedelayo qodobada heshiiska is-afgaradka ama waxa loogu darayo ay Iiraan si cad u diidan tahay, isla markaasna kubaddu hadda ay taal dhanka Washington. wuxuu sheegay in sii socoshada habdhaqanka militari ee maamulka Mareykanka iyo tixgelinta damacyada ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu aysan joojin doonin wareegga iska horimaadyada, balse xaaladda ay dib ugu soo celin doonaan halkii markii hore ay taagnayd. dhankiisa Gabriel Soma oo horey la taliya ugu ahaa ololaha doorashada madaxweyne Trump ayaa isna wuxuu sheegay in dalabaadka Mareykanku ay diiradda saarayaan burinta ama wax ka beddelka heshiiskii nukleerka ee 2015, ogolaanshaha kormeer aan shuruud lahayn oo lagu sameeyo goobaha nukleerka ee Iiraan, joojinta horumarinta gantaalada balastiga ee halista ku ah Yurub, iyo soo afjaridda taageerada Iiraan ay siiso kooxaha hubaysan ee gobolka. hase yeeshee Haddad ayaa wuxuu kaga jawaabay taas in dalabkan aysan ku jirin ajendaha wadahadallada, isla markaasna Iiraan ay u aragto xariiqyo cas maadaama awooddeeda difaaca ay yihiin saldhigga awooddeeda ee ay kaga hortagto, sida uu yiri, gardarrada Mareykanka. wuxuu tilmaamay in kaarka Marinka Hormuus uu yahay mid ka mid ah kaararka muhiimka ah ee Iiraan gacanta ay ku hayso. waxaa intaasi dheer rabitaanka shacabka, awoodaha difaaca iyo taageerada dadweynaha. wuxuu sheegay in Mareykanku uu doonayo inuu gacanta ku dhigo Marinka Hormuus, balse Iiraan arrintaasi ay diidan tahay, isla markaasna ay u aragto in marinku uu yahay arrin u taalla Iiraan iyo wadamada gobolka, gaar ahaan saldanadda Cumaan, sida ku cad heshiiskiisa afgaradka. wuxuu ku adkaystay qabiirkan reer Iiraan in rabitaanka Iiraan uu yahay saldhigga lagu dhaqaajinayo dhammaan kaararka awoodaha iyo hubka lagu wajahayo cadaadiska Mareykanka. falanqeeyaashu waxay ku soo gabagabeeyeen falanqayntooda in sii socoshada iska horimaadyada militari iyadoo aan xal diblomaasiyad loo helin ay halis gelinayaan in dagaalka uu ku fido kaabayaasha muhiimka ah ee gobolka. waxay sidoo kale ka digeen in weerar kasta oo Mareykanku uu ku qaado xarumaha tamarta ee Iiraan uu la kulmi doono
jawaab la mid ah oo Iiraan ay ku beegsanayso xarumaha shidaalka ee wadamada khaliijka taasi oo horseedi karta korar weyn oo ku yimaada qiimaha tabarta isla markaasna halis gelin kara dhaqaalaha caalamka falanqeeyaasha waxay ku baaqayaan in dib loogu laabto miiska wadahadallada si loo hirgeliyo heshiiska is-afgaradka ee hadda jira halkii loo jihaysan lahaa iska horimaad furan oo cidna aanay gaari karin ujeeddada ay leedahay ama aysan ogeynba halka uu ku dambayn doono inkastoo Washington iyo Tehran ay 18 Juun 2026 kala saxiixdeen heshiis is-afgarad oo ay ku jiraan joojinta hawlgallada military iyo bilaabista wadahadallo lagu gaarayo heshiis ballaaran haddana Trump wuxuu 8 bisha Juulaay ku dhawaaqay dhammaadkii heshiiskii kumeel gaarka ahaa kadib markii Iiraan ay beegsatay 3 markab oo ku sugnaa Marinka Hormuz ciidamada Mareykanka ayaa markaasi dib u bilaabay duqeymaha ka dhanka ah gudaha Iiraan iyadoo Iiraanna ay sidoo kale kordhisay jawaabaha ay ka bixinayso iyadoo markaana beegsatay xarumaha military iyo saldhigyada military ee Mareykanku uu ku leeyahay gobolka waxaana la sheegay in sidoo kale ay sababeen dhimashada iyo dhaawaca soo gaaray askar Amerikaan ah iyo sidoo kale weerarada Mareykanka oo iyaguna sababay dhimasho iyo dhaawac soo gaaray muwaadiniin fara badan oo reer Iiraan waa tahay haddaba xaaladdu halkaasay maraysaa suurtagal waxaa dagaalku inuu ballaarto weliba warkan ka soo yaray Sacuudiga ee uu Iiraan ugu baaqayo in ay joojiso weerarada ka dhanka ah Jordan iyo wadamada khaliijka ayaa waxa la leeyahay wuxuu u muuqdaa fiintii colaadda oo fikir sare gaartay wax kastana la filan karo waxaana sidoo kale la sheegayaa haddii Sacuudigu uu xoog iyo isbahaysi u adeegsado Xuutiyiinta Iiraan markaas inaysan gacmaha ka laaban doonin sidoo kale xogaga iska caabinta ee Ciraaq ku sugan ay ayagu qudooda markaasi waxa suurtagal ah inay beegsadaan saldhigyada militariga ee Mareykanka ku yaala Ciraaq iyo sidoo kale wadanka Kuwait iyo wadanka Sacuudiga Israa'iil dagaalkeena soo gasho xaaladdu markaas waxay noqon kartaa mid faraha ka baxda ilaa ay hadda ma muuqdaan dadaalo dhanka diblomaasiyadda oo la isleeyahay way guuleysan karaan weliba warkan la xiriira in la doonayo Iiraan in lagu soo rogo go'doomin dhanka badda dhanka dhulka ah ayaa xaaladda uga sadari karta waynu arki doonaa wixii ku soo kordha arrimahaasi inta ayaan ku soo gabagabeynayaa maanta barnaamijkii wararka maanta waxaana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijkan si aad ula socoto wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbino haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo beer waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka jimca mubaarak salaamullaahi calaykum ورحمة الله وبركاته